talaada waxay subixii hore qisaas ku fuliyeen laba ka mid a raggii kufsaday dilayna marxuumad Caaisha Ilyas kuwaas oo horay maxkamadaha Puntland ay dil ugu xukuntay. ragga la toogtay ayaa kala ah Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige halka Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo la dhashay Cabdifataaxna laga reebay. maxkamadda ayaana saddexdan nin horay ugu xukuntay kiiskan waxaana xukmanaha saddexaad muddo 10 cisho dib loo dhigay kiiskiisa kadib markii uu sidaasi codsaday Ilyas Aadan oo ah aabaha dhalay marxuumad Caaisha. maanta saaka 2 saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaa qisaastay waan ku faraxsanahay. ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumanaya ayeen dilkana maanta lagu wada furiyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cisho dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka iyo annaka waana 10 waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama siciid madaxweyne uu dhacay iyo ka yimi maadiga go'aanka codsiga dhibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggeena dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya. warbaahintu meesha way joogin lagu qisaasay maxkamada Allah naxariistay maxaa cadeynaya baraha bulshada hadalka kala duwan ku jira in nimankii la dilay aysan ahayn iyagii kiiska Caaisha tooyada Allah naxariistay maxaa cadeynaya in arrintaasi nimankii ay adiga Ilyas ahaan in nimankii goobta la geeyay ku fiilayeen nimankii Caaisha Allah naxariistay nimankii Caaisha dilay waa wada qaani daris baan ahayn waan wada hadalnay hatta way saafinay xafis bay iga dalbadeen iyagoo tiir gaariga saaran gaal shira aakhirun baa war jira baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadii adigu joog ma yeesho joog waana hatta markay dhinteen runta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadeymo iyo hawlo xajiday in ay isaga walaalkiisu leeyahay DNA iska yimaadeen marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalo DNA ay isku mid ah noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA-gu abi hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo qofsiga ku dhex jira laftigiisa suucaankiisi baa ku jira shaawadiisi baa ku jirta dhiiggiisi baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa. qisaasta maadiga fuliyay ehelkaaga qoyskaaga si dawladda ayaa u bandhigtay markaas dawladda ayaa qisaasta annagaa fushanay dawladdu waxay tiri fushadaa la yiri sharciga islaam weeyaan annagaa fushanay barnaamijkan qaabka u dhacay dhinaca dawladda dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dambigaas galay Caaisha Ilyas Aadan ka galay waa la toogtay laba ninna waa dambeeya 10 cisho ayuu xirnaanaya haddii ay noqoto in ninkaasi laga wada hadlo oo maxkamaddu ay go'aankeeda gaadho adiga Ilyas ahaan qorsho ma ku jira ninkaas inaad cafis haddii kiiskaas lagu helo oo aad muddo ka qaadatid ama aad qisaastid baaris baa lagu jira kaas baaristaas haddii DNA la qaado kale waa arkaynaa haddii wada hadal yimaadana waa arkaynaa laakiin 10 cisho waan xiraya فريم حاول دريسة هذا الدريسة هي وتلفزيون داورية هذا مسافة بس نوع هضية أنت أنا وحايد أنا وحايد مطلوب أنا أي سويسي ما ترى عن فلان إنه كنت تروح لمقنعه أي سنة عيدورين قبل ضمبه وحاي مدرية طلع عسكرك عن مركبودان أنا بسوي حولنا إلياس وكيوم هذا لنا بل بودان ضدك وحاول عبرتان كيس كان سلوا هاي إن حال قبران كره kiiskan waxaa laga baranayaa 10 xoog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaadayaan oo dhacay kiiskan